laba kelmadood baan rabaa inaan ka ilaahdo amniga gobolkan Cayn nabayow ama dad yahow reer Khaatumo ama dad yahow reer maxaan ku raahday Caymeed amnigu waa nolosha qaybta ugu muhiimsan weey inaynu amnigeena ilaashano inaynu amniga ilaalino waa muhiim noolaan mayno oo waxba inoo jiri maayaan oo dadnimadeenu waa lumaysa haddii aan amnigeena aynaan ilaashan waa la inaga dhex shaqeynaya oo kuwaan inaga fogay baa inaga dhex shaqeynaya oo waxa la rabaa inaynu isku dhacno oo habeen iyo maalin rag baa u guureynaya in deegaankan isku dhac ka yimaado war arrinta laga feejignaado haddayna nin u adeegaya aynaan ka feejignaan wala meel xubin ku dambeynana nin foosto cid leedahay riixayana oo doonaya dadkiisu inay isku laayaan isagoo dana ummad kale leedahay maxaan ku ka shaqeynaya wartaayeenan u dhaga wadanaana ujeedada hadda ka dambeysana waad garanaysaan niman meeshan iman kari waayay baa waxaa la rabaa in magaaladan inta amni darro laga dhex abuuro inay yimaadaan oo sababihi ay ku iman lahaayeen in loo fududeeyo arrintaa laga feejignaadaan leeyahay dhanka kale waxaa